بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan salaamayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye meelay joogaanba iyo sidii qiimaha badan lahayd ay uga soo qayb galeen xafladihii dabaaldega saddexdii casho uu xisbiga kulmiye u lahaa aad iyo aad baan u salaamayaa taageerada ballaaran ee muggiya miisaanka leh ee sidii caadada u ahaan jirtayba ay maanta si ka ballaaran ugu soo baxeen oo ugu muujiyeen inay u taagan yihiin taageerada xisbiga kulmiye aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqaya bahda saxaafadda ee maanta halka ku sugan oo allah u mahadnaqaya warbaahinta ay ka baxdo maxaan ku dhahay iclaamaduna waan u mahadnaqaya waxa aa ogtihiin maanta inay ahayd maalintii waddani u lahaa waddanina uu dib uga laabtay xafladihii iyo dabaaldegyadii iyo banaanbaxyadii uu dib uga laabtay isaga oo ku marmarsooday inuu kharashkii ku bixi lahaa ugu deeqayo dadweynaha maatada ee jilicsan waa nasiib wanaag horta hadday maanta xasuusteen in waddanka dad maataha oo jilicsan oo baahani ay joogaan waxaynuna arki doonaa bal dhulka ay wax siiyaan iyo dadka ay wax gaadhsiiyaan iyo waxay siiyaan iyo waxay gaadhsiiyaanna waynu arki waxse hubaalah in ay maanta dani u run sheegtay oo ay tahli kari waayeen inay ololihii doorashada sii wadaan wax badan bay ordeen calama la ordeen dhirta ku taxeen marba guri geeyeen dhiigbaxeen wakhti aan wakhtigeediiba la gaadhin xalaale wax uga kordhay ma jirto waxaynu ka faa'iideen waxa weeyaan inay maanta tahli kari waayaan ay xiiqeen rogcadaagii baa ka daba yimi waxaanu leenahay talaxumada jabka noocaas oo kale ah bay keentaa waxaanu aad iyo aad ugu rajo weynay inuu xisbiga kulmiye guul aan muran lahayn inuu ku soo bixi doono waxaan kaloo taabanaya guddoomiyaha xisbiga waddani khudbaddii uu ka akhriyey maalintii dhoweyto boorama waxa weeyaan waa khudbad dareen badan iyo xanuun badan kicisay in dhowr meelood iyo dad badani ka hadlaanna nuxurka ay lahayd ayaa kalifay iyadoo dad badani ay ka hadleen haddana waa ila noqon weyda aniga laftaydu inaan ka aamusnaado waxay muujinaysaa cunfiga iyo maxaanku rahdaayey colaadda ku jirta xisbiga waddani bay muujinaysaa waxay muujinaysaa cadaalad darrada guddoomiyaha xisbiga waddani ayay muujinaysaa waxa uu taabtay wax dhinacyo badan saameynayay bay ahayd dhibaatadu dhinac walba ay ku dhacday sida ay ku timina si la garanaya ayay ahayd si cid gaari waday ma ahayn taariikhdeedana in dib loo raaco la faro kuma qurux badnayn waa la dhintay xabaaluhuna meel walba waa ka qodan yihiin waa laga bogsaday waa laga walaaloobay haraa looga socday harumar baa laga gaadhay waa mushtari baa furmay dadkii waa ka soo kabteen fooqyaa la dhistay dadkan maanta jaamacadaha laga soo baxay in maanta dadka wixii la xasuusiyo oo maanta intooda badaniba aanay ogeyn oo ay gadaal ka dhasheen oo dadka maanta xoogga u ah waddanka ay yihiin in taariikh xun oo madow dib loogu celiyo aad iyo aad bay ayaan darro u tahay taas waxay ku tusaysaa in ajando qarsooni inuu jiro annagu qarinay laakiin de hadda iyagaas sheegay waxaa ka mid ah waxyaabaha qarsoona ay wadaan halkan maalin dhoweyto waxaa lagaga khudbadeeyey in saldanadii badhaneed ay halka joogto iyadoo sidaynu ognahay suldaan siciid cabdisalaam uu ku sugan yahay xaruntiisa hadaaftimo oo weliba uu yahay suldaanka ugu badan ee xaruntiisa fadhiya aan kana tegin iyadoo dani ay ka kaxayso ma ahaane oo arrimo uu ka fursan waayo ay ka kaxayaan ma ahaane cidda laga hadlayaa waxa weeye waa cid aan ahayn waana cid uu waddani ku tala galay inuu saldanaddaa ku dhex galo hadduu hoggaanka doorashada helo aad iyo aad baan uga xunnahay in dhaqan caynkaasa
deganaanshaha iyo arrimaha dhaqanka ee ummadda in si waadix ah maxfal loogaga hadlo oo lagu muujiyo waxa laga damacsan yahay dadka degan ee hoggaankooda dhaqan ogol waa muuqataa iyagaa yidhi waana ajandayaasha ka mid tahay waxaa xisbiga waddani u wada dhaqan burburis waxa weeyaan kullukum mas-uul oo kullukum mas-uul can raciyati qof waliba waa mas-uul mas-uuliyadda kuugu horeysana waa ta qoyskaaga haddii qoyskaaga laguu dhaafo carruurtaada laguu dhaafo oo lagu wacyigeliyo inaanu inanku aabbihii xukumin inantana hooyadeed xukumin waalidku carruurtiisa xukumin ilmuhu xor uu u yahay meeshuu doonayo taladuu doonayo inuu goosto xaaraan weeyaan waa wixii layna ka nahiyey diintuna ma ogola dhaqankuna ma ogola dadka qofkii codka doonaya dadku waayeel bay leeyihiin hoggaamay leeyihiin madax dhaqameedyay leeyihiin siyaasiyiin bay leeyihiin ha u yimaadaan oo ha weydiistaan codka ay doonayaan diintu waxay tidhahdaa guryaha xagga dambe ha kaga imanina ee xagga hore kaga kaalay ninka carruurtaada kuu dabamaraya ee adiga kuu iman waayey inuu kugula soo hagaago inuu codku weydiisto waxa weeyaan waa nin dhaqankii burburinaya waa nin akhlaaqtii iyo usluubtii ummadeed burburinaya waa tii akhlaaqdii iyo usluubtii diineed burburinaya arrinkaasuna arrin wanaagsan maaha dadweynahana waxaan uga digaynaa dadka waxaa wadaa way idinla joogaane dadkaa waa inaa carruurtiinana ka ceshataan una sheegtaan carruurtiina iyo guryihiina faraha idinka qaadaan hadday wax doonayaan oo cid idinka doonayaanna ha idin yimaadaan idinkoo ha idin weydiistaan waxaa markaan soo gaadhay gobolka Sanaag waxaan la kulmay arrin cajiiba waxaan la kulmay rag waaweyn oo xisbiyada ka wakiila oo dadweyne dhaarinaya u yimi oo yidhi waanu taageeraynaa xisbiga waddani waanu taageeraynaa oo dadkii u yimi ee yidhi waanu idin taageeraynaa kitaab la soo baxay oo yidhi inay kaa dhabtahay kitaabkan gacanta saar haddaanu kuba aaminsanayn markaaga hore inaad taageeraysid ilan dunida meella kama dhicin qof xisbi intuu yimaado iyo ha taageerana aniga layma dhaarin oo dacdina ma dhaarin meelay ka dhacdina dunida ma jirto maanta qofka kule kitaabkan gacanta saar inaad i taageerayso ay kaa dhab tahay waa qofta marka horeba kaa shakisan marka waxaan qabaa ka dhaartayna inuu naftiisa unu dhaartay ka wax dhaarinayana inaanu kalsooni ummadda halkaa joogta ee u timi tidhi waanu idin taageeraynaa inay codsiso inaanu kalsooni ku qabin waxaan leeyahay dadkan ayaan dhaar lagu gubin waa tartan dadkuna way guureeyaan marba dhinac bay u dilaamaan qaar baa idin soo gala xaflada loo qabtaa qaar baa noo yimaada xaflada loo qabtaa laakiin dadka ayaan kitaab lagu gubine wixii idin yimaadana dee waxay idinla yimaadaan qaata yaa wixii kalena xeradooda ugu duceeyo intaa ku dhaafa laakiin waa dhaqamo aan aad u wanaagsanayn baayactun ma wanaagsana qofka lama iibsan karo qof iibihi ma jiro kaa aad dhaarisay haddaad lacag ku dhaarisay oo waxaad u dhaarinaysaa ahayd lacagteeda aad qaadatida ii dhaaro naftiisuunbuu hayaa cid kale kuuma hayo waayo dee naftiisu u dhaarta cid kale uma dhaaran marka adiguna iimaanso hadduu far keliya kuula yimaado aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda iyo taageerayaashii xisbiga kulmiya سيدي كلفتينا واحد الكويت أنا يكون يكهان أنا مشاركين إنه كعاو كهذا وحياة بدن ولا صور دافع سيد لفتيسي وطبل حق عليه حتى يمكن يصير تريان ورياشي يمسؤولين كلو كتير سنة سبيل الكويت أي واحد بدن كهذا أنا ما هاي دي كتير عنده حال ده واحد كلام مارن وسؤال وناكسن عليه وأنا متبيش كتيرته ورشحوا برعمر كيو تشوقي أنا عرفت هذا واحد مارن وحيدي نقول بدي المعلن للصباح ومعلن تبعد لهيد تحسنا وضوط فرن وحيو فرن تينو للصباح ونقول يلاحظوا تاسان لها وتاسان لها وتاسان لها لكن عندنا مارن وحساس سمسة وحساس سمسة وحساس سمسة مركا هدي اللي يقول يلاحظوا معلن للصباح
xabaaraad qufaysaa mise wixii aad adigu ku tartamaysay ee lagu yidhi la soo bax ayaad tirsanaysaa anigu waxaan qabaa inaanu muuse wax intaa ka dhaafsiisan inaanu cidna ku odhan